وريا سوبر عثمان all the way from Nairobi Kenya ninka quriya maanta World Bank ma fadhiya عثمان waxaan ka bilaabay walaalo Ramadan Mubarak رمضان مبارك كل عام وانتم بخير adiga iyo dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan iyo dadka ku daawo hadda teamka meeshan ku jira aad baan ugu faraxsanahay inaan kula hadlo ka waran martidaydii saaxiibka Sultan Seraar ayaan wareysanay Maxamed Umar motivational speaker ka dayax dalnuushe kiit habayare والله aad baan ugu faraxsanahay dadka sida quruxda badan ee barnaamijka uga qayb galayaan iyo dadkooda qof walba Ilaahay wuxuu siiyay muhiimad gooni ah hal ahaan wuxuu siiyay muhiimad gooni ah oo dadka wax ugu qabanayo ama Maryan ha noqoto oo ah gabadh aad ma sha Allah dalkeedii ku kortay ku dhalatay aan ka bixin wax ku dhex qabsatay dad shaqo ugu abuurtay ma garatay dadka noocaas oo kala Suudaan kiin marka dhamaan Maxamed kulligood waa dad Ilaahay muhiimad gooni ah u siiyay marka ma sha Allah baa leeyahay due to the secretaries iyo shaqadaada ayaana su'aalo ka weydiinaan of course World Bank laakiin maanta Soomaali badan oo ka shaqeysa bangisaas oo badan miyay jirtaa anigu mid baan garanayaa iyo mid laboon Soomaalidu horta meel walba ka shaqeeyaan way ka shaqeeyaan Soomaali badan baa ka shaqeysa xafiiska Nairobi Washington way ka shaqeeyaan marka Dubai hambal hormar Soomaali badan baa weligood ka shaqeyn jirtay ilaa hadda ka shaqeeyo hore uga shaqeyn jiray marka ما هم إن كل شيء كشقية ولا سلا وصل. ما شاء الله ولا. وحكوا يدل ما كشقية. وحكوا يدل لها عثمان ولا سؤالا كوسو ديارية. هاي ديار بنا. ما أنت حنون ككوفيد 19 وكيا شدة قالها يو أديك بالشدة. إن هرت ده حنون كان وحنون بانديميك بانديميك وحوي وحنون صف مرينا وعدون كردن حل مرقب صدي وبقولال كي سنة جدا بهذا حنون لمبدا. إنه الدنيا سومري دلوما وملايين يمركا تقالها وقالوا وحو جيست بالمثال هذا سوماليا سوقات سوماليا تقاله إنه وحو كتير سنة وحن كملنا هاي شنطة وضن الدنيا ده وصل برصن مركا لا فيريا وحصوصار كوحلي هذا ما gross domestic product أما GDP إلى هيدا خيرات بونسي أو خيرات والين هاي لكن خيرات كيني على هذا درتيس لقى فائدة وحتى marka dhaqaalaha Soomaaliya oo kala tusaale ahaan wuxuu u geystay horta isu socodkii dhaqaalaheena waxa weeye waa consumption driven ama isticmaal ama han noqoto diyaaradihii soo degay dadkii imaanayay small businesses-kii furnaa oo la wada xiray awal bayado dhaqaalaheenu iska maaragtay uu iska ahaa daciif ayuu haddana wuxuu u geystay maaragtay isu socodkii iyo kala xirnaanshihii iyo wixii waxay keeneen in dhaqaalaheenu xataa bilmithal canshuurta oo kale canshuur lama aruurin karo aad bay dadkii awood ahaan u yar yihiin awoodooda marka la fiiriyo marka dhaqaale ahaan wax weyn buu u geystay anigu awalba iyagu dhaqaalaha iyagu uusan aad u weynayn ta kale rabinaan isla taasaan raacana waa soo qortay waxa weeye muhiimadda ay leedahay in maxaa la yidhahdaa iskaashatada iyo caawinimada dadka danyarta waayo maanta waa aragtaayo dadkeena way ku badan yihiin danyartu oo anigu tusaale kale markaan dee dhul Soomaaliyeed aan wareego waan arkaa waa hooyo caano iibinaysa sax hooyo caano iibinaysa ama hooyo tamaandho iibinaysa oo laamiga dee marka especially markaan aad countryside ka waa tagtid lagu caawinayaa waxa lagu caawin karaa bimithaal wadamadan horumaray waxay leeyihiin wax la yiraahdo social safety net programs ama sida hadda Mareykanka oo kale dadkii markii la guryaha fariista iyo dawladda baa lacag u dirayso toos qofkii cash baa loo diraya si uu qofkii awood u yeesho inuu wax soo iibsado marka anagu ma lihin dhaqaalaha awood inta leeg marka sida kaliya lagu caawin karo waxa weeye qoysaska ay saboolka ay dhibaatadu gaartay ama dadkii informal sector-ka ka shaqaysan jiray ama shaariciyada alaaba dhigan jiray oo dhibaatadu gaartay meel walba laga xiray in la siiyo waxay ku noolaadaan waxaan kaga qayb qaadan karnaa in qof walba oo Soomaaliya xawilaaduhu for example 2014 waxa lagu qiyaasay lacagta dadka ay soo diraan xawilaadii dalka soo gashay inuu boqolkiiba 24 wax soo saarka wadanka ka mid yahay marka xawilaadaha kale in dadka wax loo soo diro la caawiyo oo toos qof walba gurigii hooyadii ama aabihii
telefoonkii lacag loogu diro oo ay wax soo iibsadaan marka ciddii hore wuxuu soo diri jirtayna way ha wado ha soo dirto hana la mobilize gareeyo sidii loo heli lahaa dhaqaale kale oo badan si dadka loo caawiyo adiga ka mid ah oo platformka ku caawin karo oo dadka oran kara hadduu qof walba $2 soo diro bulsho badan guryo badan bay dab u shidi kartaa $2 waxaana rabaa inaan xaggan aad iyo aad aan kaaga mahad celiyo ninkii ugu dhiirigeliyey inaan foundation aan furto oo iga caawiyey waa maxaa lahdaa dhalinyarada maxaa as a World Bank ahaan ama Cusmaan ahaan aad u qabateen ama jirto oo u qaban kartaan والله هذا الماتش علينا ان انستيوشن كويس wuxuu leeyahay channels gooniyo oo loo maro anigo kale shakhsiyan waxaan ay fard shakhsi waxaan kaliya ku caawin karaa inaan awareness sameeyo oo aan intaan saaxiibka la ahay oo adigu ka mid tahay aan iraahdo war wixii la qaban kara hal la qabto dadka masaakiinta ah loo gargaaro ha laga qayb qaato ama abaar ha noqoto ama dadka daadadku ku fataheen oo kale ha noqoto ama hadda ayaxoo kale locustigoo kale wuxuu ku sameeyey dadka beeralayda dhibaato aad u weyn buu ku sameeyey oo dalagii soo go'i lahaay oo dhan buu dhib u keensaday marka inaan dee mobilizationkaas individual aan contribution ka geystana yani sidaasaan dhalinyarta jeclaan lahaa in looga wada qayb qaato haddii qof walba uu inta keliya uu awoodo qofkii $2 awoodo qofkii $5 awoodo qofkii $10 awoodo hadduu intaa keliya sameeyo wax weyn baa la qaban karaa iyo baan rabay deynaha waynakii arkayna maalin dhaweyd waa deynaa la bixiyey deynii baa la cafiyey deymaha ma ka jawaabi kartaa wata deyna miyaa la cafiyey waxaan jeclahay hawshaas inaan maaragtay si guud baa looga hadlay marka in ay deynta cafinteedu waxota dee faa'iiday u Soomaaliya u leedahay mar walba oo waxaan ku soo noqonnay saaxaddii adduunka in maaragtay hadda bilmathaal haddaad deyn lagugu leeyahay dee waxa laga yaabaa next door neighbor inaadan waxba ka soo amaahan karin ama aadan ما فهمت marka taas cidii u baahan macluumaad dheeriyo publicly waa available youtube ku jirta website-yada ku jirta dawladda website-yada ku jirta marka meelo badan ka wada akhrisan karaan waxaana Cusmaan walaal adiguna ina in yaro dhiirigelina iyo wacyigelinba oo ku saabsan dhalinyarada inay daawanayso xaggan maxaad oran lahayd adiguna dhalinyarada hadda 2500 oo ku daawanayso waxaan oran lahaa wadankeenu waa waxyaaba wuxuu leeyahay unique ah oo aan dunyada kala lahayn waxa kamida dunida ma jirto dad hal ethnic ah hal diin leh hal afna ku wada hadasha boqolkiiba boqol from Ras Kamboni ilaa Ras Casayr waxaan ku wada hadalaa hal af oo aan isku garano ethnically waxaan ahay one ethnicity dad hal dawlad yani hal leh jinsiyad marka waxaan oran lahaa wadankeenu wuxuu ka mid yahay wadamada dhalinyaradu ay ka tahay boqolkiiba majority-ga hadda Soomaaliya oo kale marka dhalinyarada la fiiriyo boqolkiiba roughly 70 boqolkiiba waa dhalinyaro waxay ka yihiin less than 35 marka waa powerhouse ma garatay haddaa xasuusta qaraxii sooba ka dhaco kale hal mar bay clean gareeyeen wixii ka dhacay Debriski wadamada qaar dadkii dhan baa waa age waxay noqdeen dad waaweyn Yurub wada joogtaa marka dhalinyaradu waxaan oran lahaa wadankan fursado waaweyn ayuu leeyahay wuxuu leeyahay dhaqaale Ilaahay siiyey iyo hanti u baahan in la soo saaro xooggiina dhalinyartii ayaa koow ka ah marka inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka inay ka qayb qaataan wacyigelinta inay ka qayb qaataan nabadda iyo inay ka qayb qaataan waxa ugu muhiimsan oo ah waxbarashada waxaan ku leeyahay aad iyo aad Cusmaan walaalo ayaan kaaga mahad celiyey waxaan xaggan ka salaamayaa asxaabtay factfulness dhammaantiin ba xaggan aniga wala salaam waxaan leeyahay Ramadaan Mubaarak shantii su'aalood degdega Real Madrid mise Barcelona hands down Barcelona ugali mise Paris Hilib Paris Hilib hablaha kuwa dhaadheer mise kuwa gaagaaban taas kama jawaabayo gabdhaha dheer laguma raaco iyo gaabna waxa lagu raacaa qalbiga iyo qofka shakhsiyadiisa waa logala shakhsiyad mise qalbina laakiin labadaas waxa moodaa inay personality encompasses everything waa ina mid doorata
قلبي لاس عروضه ما هرقيسا صوماليا waxaa leeyahay dhammaantiinba sacab wanaagsan walaalkiisiiya sida sharafta iyo karaamada leh waa mahadsantahay love you brother waa inoo Nairobi dee ان شاء الله باذن الله تعالى. ابا ما سنتي والله.